أحمد سعيد عيقي أو صحفي رقعة سوماليات مدة 20 سنة أهنا كسر شقينا بي بي سي ده مانتا كسوماليكا ayaa laga bilaabo maanta waxa uu howlgab ka noqonayaa shaqadii BBC-da muddadaas 20 sanadood Axmed waxa lagu xasuustaa sida joogtada ah ee wararka ugu soo gudbinayay dhageystayaasheena Axmed ayaa hawsha saxaafadda waxa uu ku soo diiray isagoo aad u daayar waxa uu ka mid noqday digihii TV-ga iyo radio Muqdisho ee Soomaaliya burburkii dawladii hore ka hor haddaba Cabdullaahi Cabdi Sheekh tiftiraha laanta nafka Soomaaliga ee BBC-da ayaa Axmed Siciid waxa uu ka wareystay waayihiisa saxaafadda waxa uu ugu horreyn weydiiyay waxyaabaha uu soo joogay intii uu BBC-da la shaqeynay Cabdullaahi oo BBC-da muddo 20 sanadood ayaa la soo shaqeynayay January 15keedii 1999 ilaa iyo imaka oo November dhamaadkeedii 2018 markaasi waxyaabo fara badan baa isoo maray intaasi laakiin hadii aan soo qaato 1999 markii aan bilaabay aan shaqeynayay shaqada ayaa waxa soo maray halkan gobolka markii dawladda ku meelgaarka ee Soomaaliya loo sameeyay iyadoo dawladda dhexe ee Soomaaliya markii ay burburtay 1999 Djibouti baa lagu qabanayay shirkii Carta marka Soomaaliland may ogolayn shirkaasi waxaan xusuustaa markaasi in sidii war aan u doorayay ay la gashay in wafdi ka yimi dalka Djibouti oo baarlamaan iyo odayaal isugu jiray oo markaasi doonayay halkan in ay ku qanciyaan shirkada ka qayb galaan oo loo diiday xataa diyaaradda inay ka soo degaan waana madaxweynihii markaas Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal amarkaasi u bixiyay ayaa garoonka diyaaradda aan tago doonayna waxa ii suurta gashay sidii warkii aan doonayay in diyaaradii ay saarnaayeen in aan gudaha u galo oo ninkii gudoomiyaha ay markaasi watay aan ku soo wareysto dabadeetna markii dambe ay wasiiradii joogay Soomaaliland halkaasi ay doonayna igu qabtay laakiin markii dambe ay isku qarxiyeen in ninkani warkiisii maskaxda uu ku haystay haday ku qaadno qalabka marka iyaguna aan ku qarxiyeen ay keenaan qaytoodii marka waxyaabo kale fara badan bay soo maray doorashooyinkii shanta ahaa ee soo maray Soomaaliland oo saddex doorasho madaxtooyo oo ka dhacay 2003 2010 tii ugu dambeysay oo ay saddexdii murashaxba isugu keenay BBC-da markii ugu horeysay dood debate way fara badan yihiin waxyaabaha ay soo maray inta 20 sanadood ah qaraxyadii waa kamid ah madaxtooyada Soomaaliland iyo xafiiska consulate Ethiopia iyo xafiiska UNDP 29 bishii October 2008 oo markaasi BBC-da lagu matelayay qofkii ugu horeeyay ee markaasi madaxtooyada galay madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin oo markaasi gudaha ku jiray oo qarax ku jiray laakiin aan waxba noqon markaasi inta ku soo arkay isaga iyo dadkiisa xagga sare deganaya xaaskiisii dadana codadkii ugu horeeyay markaas ka soo qabtay in madaxweynaha arrimuhu waa bandayeen Cabdullaahi laga gayoon maayo Axmed oo laakiin dad badan oo saxaafadda BBC-da ku jira waxay aad kugu ixtiraamaan in aad maaragtay mihnadaadii saxaafaddu ilaalinaysay isla markaasina aad u hufnayd oo maaragtay inta badan dhinacyada ay kugu kalsoonaayeen arrintaas ay kugu suura gashay in badan baa la weydiiyay Cabdullaahi oo qofka bini aadanka waa sida uu iska dhigo markaad xirfadan taqaano anigu doctor oo yar baan bilaabay oo 17 jir radio Muqdisho radio Hargeysa markii dabada la soo bedelay dib baan dabeetana 1991 jaamacadda doonto waxbarashadayda xagga mihnada saxaafadda inaan sii korsaaban doono kulliyadii saxaafadda wadkii labaad baan markii la furay laga furay kadibna waxaan ahaa wariyay ugu horeeyay ka hadla telefishinka Soomaaliyeed markii la furay 22 October 1993 waxaan ka faa'iiday markaasi inaan helo waxbarasho Masar baan ku soo bartay tababartay oo istuudiyaashooda waaweyn iyo aan tagay oo shan bilood joogay South Korea ayaan tagay waxaan tagay Baghdad waxaan tagay markii dambe BBC-da de wariyooda Ingiriiska tababaro badan ku qatay marka tababaradaasi way caawiyeen waxa kale oo jirta shakhsiyadda qofka adigu hadii aad doonto in aad markaasi farta lagu soo fiiqo la yiraahdo dhinacaas ula jira dadna duka balcad aad noqoto adeeg ku jirta iyo in aad dadka oo dhan kugu kalsoonaadaan oo dabadna qof waliba dabadeetana uu ku ixtiraamo Axmed oo dadka BBC-da ku jira xoogaha way kaftamaan oo marar qaar waxay leeyihiin Axmed ma jecla safarka arrintaas maxaa ka jira Cabdullaahi waa jeclaan jiray oo waxaan xusuustaa 1998 mar aan socday saddex maalmood diyaarada aan saarnaayo intaan ka baxay Muqdisho Rome aan maray oo Rome aan ka tagay oo dabadeetana aan tagay airport markaa ku quruxda Charles de Gaulle airport ee Paris ku yaala dabadeetana 6 saacadood halkaasi aan joogay dabadeetana mabaaneegi khariidadii dabadeetana aan ka gudbay Atlantic oo aan tagay Anchorage oo ah in Alaska ee dalka Mareykanka dabadeetana aan ka sii duulay oo aan tagay dabadeetana Seoul South Korea waxaan eegay markaa saddex maalmood oo diyaarad saarnaa markaa waa jeclaa marka hore laakiin marka dadaadu marba mar ka dambaysa waa iska caadi oo waasigu waa iska jira inta dambe
marka axmedow dabcan dad badana oo saxaafadda soo geli rabaa jira haatan oo dhalinyaro ama jaamacadaha dhigta oo adiga iyo dadka saxafiyiinta kale ee saxaafadda ku jira ay u yihiin dadka ay ku dayanayaan oo ay fiirsanayaan dadkaasi maxaad leedahay wallahi dadkaasi in badan baan idhaahdaa oo anigu badanaa dadka mikrofoonka hadee marka aan idaacad ka shaqaynaya mooye meelaha kale soo taagan mayhi laakiin marar ay saxaafadda kulantay waan u sheega waxaan ku uri manfac iyo magac meel ma wada geli karaan labada ninkii doonayo manfac wardo ganacsato iska noqo qofkii magac doonayo una saxaafadda magac u laga helo dadka Soomaalida isdhowra marka qofku waa ina uu afkiisa iyo cagtiisa iyo meesha uu marayo waa inuu ilaaliyo xataa marka aad suxufi tahay hay'adan warbaahinta BBC oo kale aad u shaqayso oo kale ama hay'ad kaleba marka aad cid la fariisatay cid uu aad markaasi aad la macno noqoto waxa la oranayaa halkaas ka tirsan yahay laakiin marka aad caadi noqoto dadka aad u siman tahay aad meel unde aad dadka oo dhan ay aad la macaamisho ayay marka waxa weeyaan waxa loo baahan yahay in qofku oo aad suxufi u diro oo sharaftiisa dhowrto oo wala khaldami karaa marmarka qaarkood laakiin marka aad hadii aad dadka dhaco ama la tisado ma inaad ka gabato waa inaad qanciso aniga weligay telefoon soo wacay oo aanan ka qabanin ma jiro dadka qaar bay saa u eegaan dabeetana aan qaban qofka sana waan qanciyaa qofka doona ma arko inuu uu khaldan yahay oo wax aanu rabin oo propaganda doonayna runta u sheega kama wareeray waxaan ku radaa mana helaysid hore ayaad arrintaasi aad uga hadashay imankana adiga lagu jawaabayay ragga ugu waaweyn ee madaxda ah ee halkan igu soo maray ee Somaliland ayay taasi nagu wada dhacday markii dambe gidi way arkeen in aanan anigu dhinac ka tirsanay أحمد سعيد عجاء روعدا صحافة أو ورمي تفترها لانتن أفكار الصومالي BBC دا عبد الشيخ أيو كاسي أها هذا فيسبوك اللي قستل بان رأي وذا كذا سوى ديبتين وسو كوبي كرات بوتري بدن يهين وأنا انتو ذا بدن أماني يشيكوين بدن وأحمد سوق حولي أي هنا لو ذا جيان بل هديان مدي لبا سوقت عبد العزيز عبد الله ظاهر ودقن مقالة بلد حوا حولي أحمد سعيد عجاء إنه القبن قدارونتي مجع علينا آنيقا balse da ayaa ka daba timid runtii waa wariye muddo dheer soo shaqeynay BBC-dana toddobaadkan waxaan ka codsanayaa in warbixino kuwiisa ay sii daayaan si aan u dhageysano waayihiisii saxaafadda jaamac axmed samakaab oo magaalada hargeysa jooga wuxuu leeyahay wariye axmed siciid cige waa shakhsi codkara howlkara daacadnimo iyo weliba soo gudbinta bulshada warar xaqiiqa iyo barnaamijyo xiiso leh ee ku sifoobay maanta inuu howlgab noqdaa ma ahan inuu fadhiid noqday ee waa khibradyahan ay bulshadu u baahan tahay qaar kalena waxa ay ku doodayaan oo ay codsanayaan in tababaray saxaafadeed uu noqdo axmed wanaag ayaan rajeynayaa waxaan hubaa in halkan iyo dhageystayaashu ay tabi doonaan hawadana waan ka salaamayn